ديار متين وايه بسم الله الرحمن الرحيم 22 أغسطس 2023 waxaan joognaa degmada Wardhigley gaar ahaan waaxda barwaaqo gaar ahaan xarunta dulbixinta uu ku shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir ee dawladda hoose ee Xamar saakay 7 subaxnimo iyo 10 ayaa xawaarijsi naflacaariga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaaq qarxa oo si dhuumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalala checkpoint ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugi jiray amniga degmada iyo waaxaha kale ka agdhow goobtaas ayaa xawaarijtu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaaq qarxa gaari nuuciisu yahay Toyota Land Cruiser gaar ahaan nooca Soomaalida u taqaano Leyla Calaawi walxaaq qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dawladda hoose Xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argixisadu ay ku dhufteen xawaarijtu ayaa qasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas oo ku shaqeyn jiray shirkadda Ifo ee ka shaqeysa nadaafadda maamulka gobolka Banaadir halkaas oo xarun u ahayd ayaa qasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah Allah naxariisto in Ilaahay wayna raajicuun uu kamid ahaa shaqaalaha dawladda hoose ee Xamar labada qof oo dhaawac ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta ka dhawaa oo dhaawac uu gaaray halkaas ayaa qasaaruhu yahay halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawac ah qaraxuna wuxuu ku dhacay xaruntaas oo ku shaqeynaysay shirkadda nadaafadda Ifa oo ka shaqeysa gobolka Banaadir iyo nawaaxidiisa intaas ayaa qasaaraha meesha ka dhacay haddana goobtu way xiran tahay oo waxa ku sugan ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka ciiltire oo ka shaqeynaya howlgalka sugista amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda sida kale waxaa socota baaris la xiriirta nooca agabka iyo elementska qaraxaas uu ka koobnaa sida uu goobta ku soo gaaray iyo wixii kale oo maxay ahayday la xiriirada dhacdaas sida ay u dhacday goordhow ayaan ayadana idin la wadaagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo maadaama baaristeedu ay socoto wixii ka soo baxa sidaas oo kale ayaan la xiriiri doonaa laakiin wixii maanta meesha ka dhacay intaas ay ahaayeen shirkadda jaraa'id intaas ku saabsan yahay وما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كان جاري إسكرحي بقرأ في كل جروب أنا سوى قال إنجليز جاري لاند كروسر أو نوع السمارة التقانو تويوتا لاند كروسر لكن نوع السمارة التقانو ليلة علاوي وها جاري جنا بسيد عادي جاه ما دام عيدنكو أي مركز تفيجيين أو قوارث في قبل كيدو دعي أو أي شبان waxay isku dayaan gaariga inay soo modificeeyaan oo improviser ay ka soo dhigaan oo xabadda ciidanka aan idin sheegay checkpointiga ifka xalal ciidanka joogo gaarigu inuu soo taraaray oo ciidanku ay si fiican ula faltameen laakiin gaarigu uu ka soo gudbay checkpointiga halkaasna oo xaruntii ay ku shaqeynaysay shirkadda nadaafadda Ifo uu ku soo gaaray laakiin mar walba sida aan ka aragnay furmaha dagaalka gaar ahaan qaraxda ay ku weerareen baxda oo kaleeto baabuurtu way soo muduf gareeyaan waxay isku dayaan in xabadda ciidamada geesiyaasha ah ee difaacida ku jira aysan xabadda qofka naftahliga ah gaarsiinin laakiin mar walba ciidanku waa u feejigan yihiin sida furmaha ka dhacda qawaarijtii naflacaariga heedo gobolkeedu dhacay waxay ujeedadoodu tahay kaliya inay qaraxaas dadku maqlaan oo saxaafadda la geliyo oo kaliya ay dadka ku qalqalgeliyaan in ay way active yihiin oo ay shaqeynayaan laakiin gaarigaasi gaari muduufigu ahaa iyadoo rasaasta ku socoto oo ka soo gudbay oo xaruntii maamulka uu soo gaaray xaruntii shirkadda Ifo ay ku shaqeynayso soo gaaray afayeen shirkadda wax banaan miyaa mise maamulka meesha aan joogno waa isgoyska waxaan joognaa degmada Wardhigley gaar ahaan ifka xalal marka la joogana waa qofkii yaqaan magaalada Muqdisho kale yaqaana garan kara magaalada inkastoo ay xiran tahay laakiin haddana qawaarijtu maadaama gobolkooda u dhacay waxay juhdi badan ku bixiyaan kaliya in ay wax dhibaateeyaan ciidamada ammaanka iyo ciidamada ammaanka geesiyaashana waxay u taagan yihiin in markasta ay ka hortagaan marka hadiiba gaarigan halkan kaliya uu ku qarxay oo magaaladii iyo dadka shacabka hay saxmadii uusan gaarin oo ay duruufuhu u saamixi waayeen qawaarijtu inay halka gaaraan waxaan u baahannahay in aan ummadda iyo ciidanka iyo dadkeena shacabka aan iskaashano oo gorolba aan garab taagnaano ciidamadeena